dhalinyarada soo koraysa waxay u baahan yihiin waano iyo toosin si ay noloshooda iyo diintooda ay uga badbaadaan. dhalinyaradu waa waqti ugu muhiimsan nolosha qofka, waayo waxaa la dhisaa mustaqbalka iyo aakhira labadaba. waxaa wanaagsan qofka markuu dhalinyaro uu yahay, waxaa wanaagsan salaadaha in uu joogteeyo. salaadu waa xiriirka u dhexeeya alla subxaana wa tacaala iyo addoonkiisa. waxaa wanaagsan qofka markuu dhalinyaro uu yahay inuu waqtigiisa si wanaagsan u maareeyo. waqtigiisa inuusan ku limanin meelaha maalayacniga, adduun iyo aakhiro wax nacfi uusan kasoo gelin inuusan ku limanin. sidoo kale qofka markuu dhalinyaro uu yahay, waxaa wanaagsan inuu ka fogaado wax la yiraahdo balwad, inuu ka fogaado wax la yiraahdo zino, inuusan u dhawaanin. sidoo kaleeto inuu iska ilaaliyo wax kastoo xun oo aakhiriisa dhaawacaya. sidoo kale waa inuu iska ilaaliyo saaxiibada kuwada xunxun. alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina asalaata tanhaa cani alfaxshaai waalmunkar. salaad waxay kaa reebaysaa xumaanta iyo dhibaatooyinka, fuxshiga, munkarka, wax kastoo xun ayay kaa reebaysaa salaada waa haddii uu joogteeyo. alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subalana. kuwa dadaalka iyo sabarka u gala inay raali-aanshaha ilaahay subxaana wa tacaala ay helaan, ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa ayuu u toosinayaa. dhalinyaradu waa in ay naftooda la dagaalamaan, shaydaankana iska ilaaliyaan. rasuulka sala allahu calay wasallam wuxuu leeyahay ka faa'iidayso 5 arrimood ka hor 5 kale. dhalinyaronimadaada ka hor intaadan gaboobin, caafimaadkaada ka hor inta aadan xanuunsan, hanti la-aanta ka hor inta aadan fakhri noqon, waqtiyada faraaqada ka hor inta aadan mashquulin, noloshaada ka hor inta aadan dhimanin. waxaa wanaagsan 5taas inaad ugu faa'iidaysto si wanaagsan. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi 7 qof ayaa alla subxaana wa tacaala hooskiisa geli doona, hooska maalinta qiyaama. midkoodna waa dhalinyaro, dhalinyaro ku koray cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala oo ku soo barbaaray. sidoo kale waxaa wanaagsan qofka markuu dhalinyaro uu yahay inuu ka fogaado wax la yidhaahdo zinada iyo macaasida. walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila. ha u dhowaanin ayuu leeyahay alla subxaana wa tacaala zinada, waayo waa xumaan weyn oo jidka foolxun kugu ridaysa. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dhalinyaro kii awood u leh gurka ha guursado, waayo wuxuu ka dhowraa waxay tahay waa aragga iyo farjiga. dhalinyaradu waxaa la doonaya waxay tahay inuu ilaaliyo akhlaaqdiisa, inuusan ku lumin tamartiisa iyo dhalinyarimadiisa macaasi iyo balwad. waxaa wanaagsan in mar walba iska ilaaliyo macaasida iyo balwadda. sidoo kale inuu yeesho akhlaaq wanaagsan. inamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay aniga waxaa la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan. qof marka uu dhalinyaro yahay, waxaa wanaagsan inuu ku dadaalo cilmiga iyo shaqada fiican. qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun. ma saman yihiin kuwa wax yaqaana, midka wax bartay iyo kuwa waxba aanan ogeyn, waxba aanan garanayn. diinta inaad barato iyo sidoo kale cilmiga inaad barato waa mid wanaagsan. wuxuu ku noqon doonaa waxay tahay iftiin ku hagi doona noloshaada midda aakhiraba. ugu dambeyn, waxaa wanaagsan qofka markuu dhalinyaro uu yahay inuu salaadiisa hagaajiyo, salaadaha inuu ku dadaalo. sidoo kale inuu ka fogaado macaasida iyo balwadda. sidoo kale waxaa wanaagsan akhlaaqdiisa inuu wanaajiyo. haddii ninka dhalinyarka uu ku xirmo qur'aanka iyo salaada iyo akhlaaqda wanaagsan, wuxuu noqonayaa qof adduun iyo aakhiraba khayr ugu jira. asalaamu calaykum.